halkani waa alxaqiiqa. waad maqlaysa shalay toole xisbigu laab soo baxo mudaharaad annagu mudaharaadka xisbiga waan ku kala rasduuna anuu inanka reer buurama ama inanta reer buurama ay reer awdala haddaanan haynin barnaamij cad oo ay ku dhimato askariga isku laayaan ninka mudaharaada oo soo baxo oranaya horta meey mana qabayn la mudaharaada la soo baxo waayo anigu waa baanahay inanta jaamacadda ay dhigata ka soo horjeeda ilmaha iyagu yarna fasalka afraad buu dhigtaa kuwa ay booliiska is haleela Cabdiraxmaan baa kursi waayay oo xisbiga gudoomiye ka dhacay buurmaan horta kama dhexoranayo. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. halkani waa alxaqiiqa. falada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa laba qodob oo muhiim ah. qodob waa niman xildhibaan ah oo deegaanadooda aan la doonayn mudaharaad hargeysana mudaharaad la raba inaan ka hadlo oo maanta hadlayay. qodobka labaadna waxa weeyaan niman culimo oo jimcihii ayaguna afka furtay oo siyaasad ka hadlay askartana ka dhigayay bilayska ka dhigayay niman dadkoodii laayay. labada qodob baan ka hadlaya. qodobka koowaad waxa dhageysateen ninka ugu horeeyay ku bilaabay ajalada ugu horeysa waa gudoomiyihii gobolka awdal ee xisbiga wadani. ninkaasi siyaasadda xisbigiisa ee mudaharaadka ahayd iyo amarka lagu siiyey ee madaxdiisu ku siisay hoggaankiisu uu ka hor yimi waxaana kala weynaatay laxjeclada deegaankiisa iyo dadkiisa waanu ku saxnaa. laakiin isagu mudaharaadka kama soo horjeedin markuu hadlayo nin mudaharaadka Soomaaliland ka soo horjeeda in laga dhigo moohayna waa nin ka soo horjeeda uu ka boormay laakiin kuwa kale habi ku ah halka laaxib baa ku jira. يعني nin dalka la xajala ka hayso gudaha Soomaaliland moohayn nin deegaankiisa oo quray ee la xajala ka hayso ayuha waxa fiicnaan leeyahay hadduu la xajala muujinayo inuu dalka oo dhan la xajaladeedu ay ka muuqato ilaa dalku ma kala go'o shirka bini'aadamka isku yaala ee midna mid ka maarmay weeyaan gobolada iyo degmooyinka dalku. la xajalada uu deegaankiisa u muujiyay uu xisbigiisa ka soo horjeedayna waan ku ambalyeynaya oo iyaba andhama wax xubine qaar badan buu aqal fiican aqal dhaama kooduu deegaankiisa u gartay Soomaaliland ka iska tuuray intaas buu asad qaar baan intaan garanay xildhibaanada yada kaanagu aanu dooranay markay igu jiraan baarlamanku waa ka golaha ka dagaalama hargeysa dagaal ka dhac jecel waxa la wax ku kalifaya oo uu ku faa'iideeyana ma jirto dakaabo ku fiicay kanay marka nimanka aan soo qaadanayo hadalka aan leeyahay fidnay hargeysa ka wadaan deegaankoodina way diidayin xildhibaan meedhan ninka la dhaga kowka reeboro iyo ruqi labaduba waxay ahaayeen kuwii ka soo horjeeday kuwii ururadoonka ahaa ee dacwadda geeyey haddii alla kuu reeyay maxkamadda ee ururadoonka ahaa waxa la isku hayayna waa ururadoon iyo ururadiid iyo sharci saxa oo ay qayb ka ahaayeen iyagu wixii la isku hayay ee ay qaybta ka ahaayeen waxay ku ilaabeen inay fidna hargeysa ka dhacdaa bay jeclaadeen deegaankoodana ka dhaceen. waxaan idin leeyahay deegaankiina wakaa ninkii idinku matalayay mucaaradku uu u diiday idinkuna waa kula socota. waxa idinka hadlayayna waa xaasidnimo iyo xumaan idinku jirta hargeysa oo ku nooshiin oo caasimadda dalka ah. waxaanu leenahay waanu idinku fahmaynaa waana noo muuqdaan wax qof kastoo hadlaya waxa uu ku hadlaya waanu ku fahmaynaa. hargeysa noqon mayso mid adigoo deegaankaagii wanaag la raba aad ku soo duusho oo dadkeeda maad sidaa ka iska hor keento suura geli mayso. ilaahayna waa idin arkaya inaad daalimiintiin annana waa idin arkayna. waxaan leeyahay ha dhegaysanina ninkaa deegaankiisii u diidan dhibaatada kiina ku duulimaadka ah idinkama caqli badnee ha yeelina maan leen reerkiisa
iyo guud ahaan reer Soomaaliland inta kaleba taas waa qodob raaliga hada qodobka labaad nimanka culimada ah ee jimcihii afka furtay ee isku wada kooxda ah kooxahan diinta ee qodobka magac la baxday isku magaca waxaan leeyahay war culimo waxaa ku tihiin kitaabka waxa dhacaya ee waddanka ka socda iyo wixii hore u soo dhacay iyo waxa imika socda inaanu idinka xogogaalsanin mooyaan noogama xogogaalsanin oo qaar nooga warramaya ma tiidin waxa idinka hadlinayaana waxa weeyaan siyaasad aad dhinac ka tihiin magac baa la baxday inuu Hargeysa ku qabsataan sharar waaweyn idinkoo Soomaaliya oo dhan ka kooban oon xuduudba lahayn oon dal lahayn ayaa sharar ku qabsataan Hargeysa waxa ugu qabsanaysaan shararkaasi waa nabadgelyada iyo ammaanka waddanka ka jirta ee geeska Afrika ay kaga horeyso tiiba duulimaad ku tihiin waxa ka dhigayseen ciidamada amniga ee la laayay ee istifaacayay ee ammaanka dadka la boobi lahaa hantidooda iyo xafiisyada dawladda lagu socday kuwii ku socday ka ilaalinayay ee lagu laayay ayaa ka dhigayseen in niman dadkoodii laayay waana qalad aydan runka sheegay haddaa hadlaysaan oo fidnada ka hadlaysaan oo aad daacadtiin markii Cabdiraxmaan Cirro uu karinayay fidnadan maanta dhacday iyo rabashkan iyo dagaalkan uu kiciyay isagu uu qaybta ka yahay ee uu soo xabada laabta u dhigi maysaan uu isweeraaminayay ayaa ka hadlayay kamaydan hadal waa daawanaysa inaa ku raaxaysanaysa waa suurtagal markii mudaharaad maanta kow inoo maaha dhibaatana kow inoo maaha ninkaa maanta dalka xukuma waynu daawanaynayo maalintii uu ku guulaystay doorashada ayaa dagaalka lagu bilaabay maanta wax lagu bilaabay maaha madaxweyne saa loogu bilaabayna ma jirto dagaalkii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ka bilaabay waa laga shubtay iyo waa la boobay doorashada la boobay maatidii u sheegay dadkii ma kasta ay hormuudka u hay wax moodayay cudurkii maalinta uu galiyay iyo dagaalkii maalinta uu ku bilaabay bay wali wadaan قبل ولا يقشوا تبور شيدو قبل أي أود وين تاعي والله تريح ولا جواي هذا الكيس ويجي بقى تدخل لنتوم دارا كل عام كي ما أنت بلعبوا ولا ما أنت ودي وحي يرمرك تشوقي مدحوينها ما تشوقها بس صدق كم مرتال غفورة كان اللي بح صدق سيدات غضب على صوصار أدونك كمان يدعين ولي غير سبالة غيره وشران غير انتو اشتريت ست غضب اوصو قرد دولدو امر فصحي او دولدية ما يدعين markii lagu qoslay ee lala yaabay qorshahoodii labaad wuxuu noqday kii lagu saaray carre oo talo ku baxay Puntland baa la tagay ciidan Soomaaliland ku soo dagaalamayso lagula dagaalamayo waa laga soo eriyay Puntland waa iyagoo ismiidaaminaya oo ku soo galay Soomaaliland buurta tabca galay uu daawanayay madaxweynaha iyo ciidankiisa qof kuma dhiman soo heli kareeyo baabiyo awoodi kareeyo ciidanku qof kuma dhigan uu aqli iyo dulqaad iyo talaasul ku furay ku baabiyo iyo lacag iyo maskax kama dhacin dawladii hore tii ka horeysay xirsi maamulayay waa kii deegaankiisa iyadoo dad wada dhashay oo reer Soomaaliland isku haystaan beebeeg iyo kaaraha iyo madaafiicda isticmaalay iyo awoodii dawladda waa joogteen culimada dalka markaa kuwa leenayeen reer Soomaaliland bay ahaayeen waa joogteen waa noolaydeen masaajidadana waa ka qudbadeysay kamaydan hadal Axmed Dhagax markii dhowr iyo 10 keenan lagu dilayay ee ayagu aan askarta waxba yeelin waliba ee rabashku sameeyay waa joogteen markii ceelaf weyn la isku dilayay waa joogteen waxaa soo dhani way idin muuqdaa
runka maydan sheegin laba arrinta maanta socotaana ma aha qalad la wada leeyahay maaha qaladka cid baa leh cidda lehi waa ciddii dagaal gelinaysay dadka shacabka ee soo kacay inayd xabadda soo dhigi maysaa ina cali waraabe markuu xukuumadda u tagayena wuxuu yidhi salmi baan samaynayaa mudaharad salmi ah markuu ka yimina wuxuu yidhi hubka qaata dadka shacibka ahaa labadaba faysal iyo ciraba hadalkoodii iyo muuqaalaba lahay inay dagaal gelinayeen mudaharaad ma dhicina dagaal baa hayo weerar dowladnimada lagu yeeyay askarta oo la hor joogay hantida ummadda iyo xafiisyada dowladda iyo dowladnimada iyo nabadda weerar lagu ahaa may dhicin maanta ka horow 60 askari in ka badan oo la laayo oo dhaawaco weli may dhicin waxaa loo sameeyay in la jira la doonayo wax la doon la sameeyo weli may dhicin xisbi mucaarida oo ilaa sharciga gacanta ku qaadanaya waxaa ogeeyeen habeenkii uu maxay maalintii uu gaboose ka qabsanay xafladda burco halkaas uu xirta ka diray 4 nin Muuse Carraa wayna faqfaqash ku jiro iyo mid kale oo xildhibaan 4 baa ka diray sinaba iyo dhicin buu in xaflad ka qabsado gaboose meesha lagu dhahdo burco waa kuwii habeenkiiba ka jawaabay inta in yar su keeneen tijaabiyey dadkiina in xafladii aan lagu dhigin meesha awood bay u waayeen ciidamada gargaaray gaboose oo maxay leeyihiin joojiyey wixii la waday waxaa lagu talagalay in xaflad lagu dhigin halkaa waxaa arkayseen in raggii soo dhaweynayay cuqaasha ahaa la afduubay oo gacan loola tegey waa wax nagu uguba waa nagu cusub waa wax nagu cusub wax aasoo dhan baa ka jira waddanka rag baana wada culimooy la idinka yeeli maayo intaad siyaasadda gashaan oo ka hadashaan inaad gurac uga hadashaan oo dadka majar habaabisaan kitaabka cidiid kula murmi mayso laakiin waxaa soconaya noo muuqdeen oo arkayna inuu idinka xogogaalsanayay naguma qaldi kartaan ka daaya ummadda fidada ka daaya majar habaabinta haddaa ka hadlaysaan halkay nabarku yaalla ka hadla oo farta ku fiiqa oo ila waa la garanaya ninkii maanta hadlaya wasiirka cali marreexaan isagoo isdhowraya ayuu taabtay halka sirtu ka qorsan tahay ma aha Somaliland iyo xisbi mudaharaadaya ma jiro reer qaybsan baa mudaharaadaya waliba qaybsan ayaa mudaharaadaya halku ka bilaabay Hargeysa waa la og yahay Burco ka bilaabana waa la og yahay Ergaabal ku bilaabana waa la og cid kale mudaharaad ma jiro Somaliland Hargeysa waa New Hargeysa Burco waa galbeedka Ergaabana waa halka nimankaasi degay meel kale heerka kala qaybsan waliba weeyaan xafad buu ku sheegay ninka la yiraahdo cali marreexaan xaqiiqo ku hadlayna waxa weeyaan hadda culimadii dalka tiin iyo kursiga اعتصام laga qaaday wasaaradda awqaaftu idin kala weynaanin ilaahay iyo hadii alla ku roon yahay in xaqiiqda iyo dalka iyo dadka idin kala weynaanin maalin horena nin sheekha ka hadlayay stadiumka oo kooxdaas oo lahaa dawladda Soomaaliya la burburiyay dawladda Soomaaliya la burburiyay wati dadka leenaysay hantida boobisahay dawladda jirtay waxaan ku soo koobay hadalkayga dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay war waxa duulimaad lagu yahay waa askarta in la jilciyo oo maskaxda laga dilo oo niyadda laga dilo oo laga dhigo qaar ma garanaysaa dadka leenayo oo la beer abuuro propaganda lagu baabiyo dawladnimada ayaa la doonaya nimankaasi awood dambe oo ay ku soo qaadaan oo loogu soo baxo oo ay mudaharaad ku sameeyaan male maalintii dawladna may lahayn dawladdii ka ogolaatay dagaalka ilaa waxay wadeen waa dagaal mudaharaad mu hayne dagaalka ka ogolaatay ayaa dadka kicisay oo ogolaanshahaas dadka kiciyay waxba isuma keeneen ina cali waraabe iyo cirro labadaba xirsi uu ka aqli badan yahay mar qura isagoo waxaan isagu mashiinka wareejinaya hadal hadan laga hayo
kuwa dadka maarlay dadka laaya iyo xabadda isu dhiga iyo hubka qaata leh waa labadaa nin labada madax uu ka aqal badan Faysal Ali Waraabana waxaan aaminsanahay maalintii hubka tiknikadaanu haysanay iyo madaafiicda ee halkaa gaadiidku lagu qofalaan masallaha hadduu maanta joogi lahaa hubkii haysan lahaa Hargeysa la dhicila aqligiisa because waxa isagoo awoodiisu hangool tahay maatidii iyo makastii hubka soo qaata isaga weeyaan ninka la xiriiray dawladda xamar ee ku yiri war roo gurmada xasan sheekhoon xamar xukumin oo magaaladu jooga ay nimanka kale afka duubta ka taliyaan maxkamadaha ku haystaan dadku kala saaraan oo aan maamul goboleedyadiisii gacanta ugu jirin ayuu u dirtaqay Al Waraab mid kale xisbiga wadana ku jira oo oo xil u haya isaguna qoraal buu soo qoray uu leeyahay noo soo gurmada madaxweyne dalka ah يعني حسبي يوض nimanka waxay sheegayaan mucaaradka aynu haysanay waxay qeylo dirteen xasan sheekh halka saarin maraysa dawladdu waxaan leeyahay war ka hortaga oo 40 qof iyo 50 qof ee waxaan wada gacanta ku dhiga inta rafin doodeen dib yey u dhicin ina falka sugtaan ka hortaga oo gacan bir ku qabta waxaan wada walamadana waxaan leeyahay والله كبقوا دينتا هايسان كو اكادو سياسة اسكا بخ ولا تكون فاهميا كما اغلب بدين ددك هدا دينتا برتين ده كما اغلب بدين دينتا ورد انو فديسانا idu kulama murmayno laakiin aqliga iyo waxa soconaya noogama sheekeen kartaan wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh